عادياً waxaan isku sheegnaa muslimiin inaan nahay laakiinse ma dabaqno kumana dhaqanno diinta islaamka oo waanba ka soo horjeednaa ku dhaqankii islaamka oo waxaan samaynaa waxyaabo diinta islaamku mamnuucday waxyaabihii ayna fartay oo ay nagu boorisay diinta islaamku ma samayno tusaale fudud u soo qaado muslimiinta oo dhan waa walaalo siday diinta islaamku na fartay laakiinse uma dhaqanno inay muslimiinta oo dhammi walaala yihiin innaga oo isdagaalla oo isdilla diinta islaamkuna way ina ka xarimtay inaan isdillo laakiinse innagu walaalaheen ayaan dillaa waa arrin mamnuuc ah islaam ahaan waxaa jira dhaqanno badan oo islaami ah oo aynu jaahil ka nahay gebi ahaan tusaale ahaan haddii aynu garsoorayno ama wax xukumayno waxa waajib nagu ah inaan cadaalad samayno xitaa arrinta aan xukumaynaa haddii ay la xidhiirto qof aan diin ina ka dhaxayn hadduu yahay sidaas darteed waxaa jira dhaqammo islaami ah oo aynu jaahil ka nahay waxaynu samaynaa waa ku dayasho cid waxaa jira masalooyin muslimiintu isku khilaafsan yihiin iyo waxyaabo fasiraadooda iyo fahankooda lagu kala duwan yahay qof walba waxa uu raacaa madhabtiisa waxaynuna u aragnaa kuwa ina ka duwan in aanay muslimiin ahayn tabardarrada ama daciifnimada ina haysataa waa ku dhaqmid la'aanta diinta islaamka haddii aynu si sax ah u qaadno waddada islaamka waxa inoo suura gelaysa inaan dhisno xukuumado cusub waxaynu noqonaynaa kuwo hufan oo cadaalad sameeya waxa inoo suuroobaysa inaannu faafino diinta islaamka inoomana bannaana inaan isdillo innagu allah subxaanahu wa tacaala ma jeclo kuwa fasahaadiya ummadaha dhammaan arrimahan waxay qayb ka yihiin diinteenna islaamka innaguse waan moognahay oo waxaan iska daba raacnaa waxa ayna amraan hoggaamiyayaasheennu haddayna dhahaan oo ina amraan dagaalama waan dagaalamaynaa haddayna dhahaan wax dila waan soo dilaynaa dhammaan waxyaabahani maaha dhaqanka islaamka iyo waxyaabaha ay diinta islaamku ogoshahay waana sababta dib u dhaceenna iyo dhibaatooyinka ina haysta caadiyan diinta islaamku ma diidayso kala duwanaanshaha madaahibta iyadoo diinta islaamku ay mid tahay marka laga reebo kuwa diida tawxiidka in aanu jirin allah xaq lagu caabudo eebba mooye iyo nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee adigu haddii aad qirsan tahay in aanu jirin allah xaq lagu caabudo eebba mooye iyo nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaad tahay muslim laakiinse innagu waxaan ku doodnaa oo isku qabannaa masaa'il intaas ka baxsan waxaana ka dhasha khilaaf dhexdeenna khilaafaadkaasi wuxuu sii sababaa inaan ka tagno ku dhaqanka diinta islaamka si saxa iyo qadiyaddii walaalnimada ka dhexaysay muslimiinta oo dhan xitaa qofka muslimka ah haddii uu wax u nooga duwan yahay waxaa inagu waajiba inaan ilaalinno qadiyadda walaalnimada muslimiinta guud ahaan tusaale ahaan muslimiinta dalalka sacuudiga iyo malaysiya way kala duwan yihiin sababtoo ah sidaan u labisanno iyagu si ka duwan ayay u labistaan haddana kulligayo waxaan nahay muslimiin oo ma dhihi karo mana dhahayno muslimiin ma tihiin waayo waad naga duwan tihiin waxaa waajib inagu ah inaan aqbalno kala duwanaanshaheenna oo aan baranno xallinta mashaakilkeenna innagoo aan dagaalamin arrimaheenna aan ku xallisanno wadahadal iyo isqancin iiraan si guud waa dawlad shiica dad badan ayaan u arkin inay muslimiin yihiin shiicada taasina waa mid iyaga u gaara dadka aaminsan fikirkaas laakiin annagu haddaan nahay dadka malaysiya waan aqbalaynaa shiicanimadooda iyadoo dhammaan dadka malaysiya sunniyiin yihiin mana u aragno inay noo bannaan tahay inaan colaadino ama la dagaalanno iyaga hadday halkan noogu yimaadaan waxaan leenahay soo dhowaada waxaase shardi idinku ah shiicanimadiinna halkan ha ku fidinina malaysiya taas idinka yeeli mayno marka waxaan qabaa dib u dhaca waddamada muslimiinta ka jira waxa keenay siyaasiyiinta iyo siyaasaddooda ee maaha wax diinta islaamku ay sabab u tahay marnaba
waxaana tusaale kuugu filan loolanka siyaasadeed ee ka dhex jira sacuudiga iyo iiraan. waxay isku hayaan maaha wax la xidhiidha diinta islaamka. loolankooda dhibaatooyinka ka dhashayna waa waxa saameeyey bariga dhexe oo dhan iyo dhibaatooyinka ka jira wakhtigan. خذ مثالا بسيطا. كل المسلمين إخوة، لكننا لا نعامل كل المسلمين على أنهم إخوة.